Burkina Faso daldhaca qaaradda Afrika gaar ahaan waqooyiga qaaradda Afrika xigana dhinaca galbeed ee waqooyi waa dal u daarmay nal amaba iftiin kaasoo ay ku hirdami jireen amaba ay harsan jireen dhalinyarada qaaradda Afrika laakiinse maanta noqday mid damay taariikhdeena maanta waxaanu kaga hadli doonaa dalka dhaca waqooyiga qaaradda Afrika Burkina Faso iyo madaxweynihii halyeyga ahaa SANKARA SANKARA waa halyeygii qaaradda Afrika kaasoo iftiin u daaray dhalinyarada qaaradda Afrika gaar ahaan Burkina Faso dalka dhaca waqooyiga qaaradda Afrika wuxuu hodan ku yahay dhinaca dhaqaalaha gaar ahaan dalxiiska SANKARA halyeygii qaaradda Afrika hamigiisa iyo hididadiisu waxay ahayd inuu Burkina Faso ka dhigo dal hogaamiya kala badh amaba dhinaca qaaradda Afrika SANKARA markii la ogaaday inuu halyey yahay waxaa damiyey amaba la dilay mar uu hogaaminayay shir ka dhacaya Burkina Faso Goma SANKARA amaba Thomas SANKARA waxa uu madaxweyne noqday 1983 waxaanu xilka hayay ilaa 87 wuxuu dalkiisa ka dhigay mid ka ceebla ama ka caagan jahliga isagoo dhisay 350 iskuul oo waxbarasho u gaara 60% wuxuu kordhiyay akhriska iyo qoraalka wuxuuna khadadka tareenka iyo wadooyinka ka dhigay kuwo dhismo qurux badan kana caagan musuqa waqtigaana wadankiisa ka eriyay hay'adda lacagta adduunka ee IMF SANKARA wuxuu dadkiisa masaakiinta ah siiyay dhul ay degaan kuwaas oo aan awoodin inay degaan amaba ay dhistaan dhul waxaanu siiyay dhul ay degaan iyo dhisanba wuxuu kordhiyay dhanka caafimaadka oo waqtiga lagu tilmaamay mid mucjiso ah isagoo daweeyay 2.5 milyan oo caruur ah oo muwaadiniinta Burkina Faso wuxuuna tallaalay 10 milyan oo geed isagoo wax kaalmo ah aan ka helin hay'adda caafimaadka adduunka wuxuu mamnuucay guurka khasabka ah kaasoo ay rag badan khasbaan dumarka wuxuu hoos u dhigay 40% mushaharka ay qaataan wasiirada iyo isaguba africain produire en Afrique transformer en Afrique et consommer en Afrique. Produisons ce dont nous avons besoin et consommons ce que nous produisons au lieu d'importer. Le Burkina Faso est venu vous exposer ici la cotonnade produite au Burkina Faso, tissée au Burkina Faso, cousue au Burkina Faso pour habiller les Burkinabés. Ma délégation et moi-même, nous sommes habillés par nos tisserands, nos paysans. Il n'y a pas un seul fil qui vienne de l'Europe ou de l'Amérique. Je ne fais pas un défilé de mode, mais je voudrais simplement dire